kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka iyo wararkii degdega ahaa ee dhacdooyinkii ugu dambeeyay qaybtanna waxaynu ku eegi doonaa hadii Ebweyne uu idmo Somaliland oo bilowday in si qarsoodi ah dhalinyaro ay tababar ugu qaadayso Tel Aviv ay ka qorto magaalada Hargeysa ee caasimad u ah Somaliland xogta tirada dhalinyaradan goorta la qaadayo iyo sida loo soo kala xulanayo waxa ay tababar ahaan u soo qaadanayaan macluumaad guud oo ku saabsan ayaan rabaa inaan xogtan idinkula wadaago waxa kale oo aan halkan idinkula wadaagi doonaa maamulka magaalada Hargeysa iyo taliska ciidanka waxa ay muujinayaan walaac xooggan oo dhinaca ammaanka ah kulan degdeg ah oo amniga lagu falanqeeyay iyo khatar waaweyn oo Hargeysa ku soo wajahan oo imika laga arinsanayo sidii looga hortagi lahaa ayaan rabaa inaan sidoo kale aan halkan idinkula wadaago waxa kale oo aan idinla wadaagi doonaa ciidamo loo diyaariyay inay toos u fuliyaan howlgalka ka dhanka al-shabaab oo 3 gobol ka bilaabanaya oo maanta tababar loo soo xiray goorta rasmiga ah ay ciidankan u dhaqaaqi doonaan iyo gobolada loogu talagalay inay howlgalkan ay si gaar ah uga fuliyaan iyo dardaaran loo jeediyay ayaan muuqaalkeenan idinku soo koobi doonaa intaynu ku wada jirno baahinteena qaybtan wixii macluumaad ah warar degdeg ah ee soo kordha ayaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa dhammaantiina soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtiinna nagu soo biira oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran barteena YouTube channelka oo subscribe saarta halkan si ay idinku soo dhacaan wararka warbixinada muuqaalada aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahin hagaagkan ku bilaabo xukuumadda Somaliland ayaa bilowday in si qarsoodi ah ay magaalada Hargeysa ee caasimad u ah maamulkaasi ay kaga qoraan dhalinyaro kuwaas oo tababar loogu qaadi doono magaalada Tel Aviv ee caasimad u ah Israa'iil xogo soo baxay waxay sheegayaan in qorista dhalinyaradan ay si toos ah uga bilaabatay magaaladaasi waxaana lagu qorayaa xarumaha talisyada ciidamada ee magaalada ay ku leeyihiin talis walba waxaa la siiyay ilaa 100 dhalinyaro in uu soo qorto oo uu qorsho yahay in tababaro noocyada kala duwan oo ciidan ay ku soo qaataan Tel Aviv talaabadan waxaa la sheegay inay qayb ka tahay heshiis dhex maray Somaliland iyo Israa'iil ee ku qatumay in dhinaca militariga ah iyo tababarada ciidamadaba ay ka taageerayso Israa'iil Somaliland waxa la sheegay in dhalinyaradan qoristooda ay imikan toos uga socoto xarumaha talisyada waxaana la sheegay ilaa iyo in ku dhow 1,000 dhalinyaro ah ayaana la doonayaa in si toos ah Tel Aviv si qarsoodi ah maalmaha soo aadan loogu qaado iyadoo Somaliland arintan ay kaga go'an leedahay inay ka faa'iideysato xiriirka ay dhawaan la yeelatay Israa'iil iyo aqoonsigii ay halka ka heleen dhalinyaradan waxaa la sheegay in talisyada kala duwan ee ciidamada ay soo qorayaan halka kuwa kalena laga qorayo madaxtooyada qaar ka mid ah beelaha dega maamulka Somaliland ayaana loo qeybiyay oo si siman iyana u soo qoranaya xogtu waxay tilmaamaysaa in dhalinyaradan tababar kala duwan oo dhinaca ciidanka ah ay halka ku soo qaadan doonaan dibna deegaanada Somaliland loogu soo celin doono iyagoo oo ka qayb qaadan doona xaqiijinta amniga guud ee Somaliland iyo si la mid ah xogtu waxay tilmaamaysaa inay ka shaqeyn doonaan si gaar ah fulinta danaha iskaashi ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Israa'iil oo ay macnaheedu tahay in ciidankan loo soo tababari doono in ay galaan amaba ay soo qabtaan cid kasta oo ka hor yimaada danaha Israa'iil iyo midka Somaliland ee ku sugan deegaanada maamulkaasi waa cutubkii ugu horeeyay oo tababar ciidan ugu ambabaxay doona Tel Aviv waana markii ugu horeysay oo dad Soomaaliyeed ama askar Soomaaliyeed loo qaado Tel Aviv oo halkaasi tababar ay ku soo qaataan dhawaanse magaaladaasi waxa ku wajahan madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo la filayo in talaabooyin hor leh oo uga sii dari karta xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland uu qaado oo ay ka mid tahay in uu si toos ah heshiis dhinaca iskaashiga ah oo dhinaca difaaca uu la soo gali doono Israa'iil oo keeni doonta in Somaliland ay si toos ah halkaasi ay uga howlgalaan sirdoonka Israa'iil iyaga oo ka hortagaya cid kasta oo isku dayda in Somaliland danaheeda siyaasadeed ay soo farageliso oo ah in ay duulaan haddii ay la kulanto Somaliland ay ciidamada Israa'iil ay toos uga qayb qaadan doonaan dagaal kasta oo ku jihisan dhinaca maamulka Somaliland in tababar loo qaado dhalinyarada reer Somaliland waxa ay dhalisay hadalhayn badan waxaase la filayaa sida xoguhu ay tilmaamayaan in Israa'iil ay qaado talaabooyin kale oo ay ku kasban karto taageerada iyo kalsoonida maamulka Somaliland oo kol hore shaaciyay in xiriirka ay kala dhaxeeya Israa'iil uu yahay mid
ku dhisan tiir adag isla markaana aan sinaba u buri karin maadaama qeybaha kala duwan ee dhinaca caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis ku saarayaan Somaliland dib u laabashada xiriirka ay la sameysay Israel si weyn looga biyo diiday tallaabadii Israel ay u qaaday dhinaca Somaliland iyo in dal gaar ah ay u aqoonsato xogaha soo baxay waxay sheegayaan ama ay tilmaamayaan in qayb ka mid ah ciidamada maamulkaasi saraakiishooda ay gudaha Somaliland ay tababar ku siin doonaan saraakiil ka socotay Yuhuudda oo deegaanada maamulkaasi imikan ku sugan oo qayb muhiim ah ka diyaarinaya saldhigga military ee Israel ka heshay Somaliland ee dhawaan la filayo in halkaasi dhismihiisa si rasmi ah looga hirgeliyo dhinaca kale hadii aynu eegnana qatar amni oo waaweyn ayaa cabsi laga qabaa inay ka dhacaan magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah maamulkaasi waxaana jira in kulan degdeg ah maanta ay isugu yimaadeen maamulka caasimadda iyo hay'adaha ammaanka maamulkaasi si weyn looga arinsaday arintan waxaana xogtu ay tilmaamaysaa isla markaana ay xaqiijinaysaa in kulankan uu goobjoog ahaa taliyaha ugu sareeya ciidanka booliiska ee Somaliland sareeyo guuta Abdiraxmaan Cabdullaahi Xasan iyadoo uu goobjoog ka ahaa duqa caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo gudoomiyaasha degmooyinka Hargeysa kuwaas oo si qoto dheer u la foguray xaaladda ka soo cusboonaatay dhinaca Hargeysa iyo qataraha amni ee magaaladan ku soo wajahan maadaama kooxda Al-Shabaab iyo Xuutiyiinta si siman ay ugu guudiyeen in halka ay si toos ah uga fulin doonaan weeraro ay kaga jawaabayaan tallaabada ay Somaliland u qaaday dhinaca Israel waxaa sidoo kale shirkan lagu la foguray sidii loo adkeyn lahaa amniga guud ee magaaladaasi waxaana lagu ballamay in ciidamada la soo kordhiyo baraha control ee ciidankana halkaasi lagu sii ziyaadiyo xarumaha dowladda hoose ee Hargeysa iyo goobaha kale ee wasaaradaha iyo talisyada iyana waxaa la faray in baraha hubinta ah ee halkaasi looga gudbo xarumahaasi iyana ciidan hor leh lagu kordhiyo waxaana la faray in ciidanka magaalada daafeeda ku sugan iyana ay dhaqdhaqaaq guud oo howlgalo joogto ah ay sameeyaan dhammaan tallaabooyinkan waa kuwa looga hortagayo qatar amni oo waaweyn oo ay wajahayso magaalada caasimadda u ah Somaliland iyo Hargeysa waxa sidoo kale kulankan intii uu socday la soo bandhigay sida xoguhu ay tilmaamayaan fariimahan jabaad ah oo kaga yimid kooxda Al-Shabaab iyo Xuutiyiinta iyo saameynta hadii aan tallaabo loo qaadan ama tallaabo aan loo qaadin arintan ay dhalin karto dhammaan qatarahan amni waxay ku soo aadeen xilli Somaliland ay si toos ah xiriir ay ula sameysay Israel aqoonsi wax loogu yeerana ay ka heshay Israel iyo booqashadii wasiirka arrimaha dibadda Israel oo dhalisay in ay sii kordhaan cabsida iyo baqdinta amni ee ka jirta magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland xoguhu waxa ay tilmaamayaan in ay iskaashadaan shacabka iyo talisyada hay'adaha ammaanka iyo maamulka degmada oo si guud shirkan loogu ballamay waxaana lagu ballamay sidoo kale in shirkan uu joogto noqon doono ilaa xaaladda cakiran ee ka dhalatay tallaabadii ay qaaday Somaliland ee Israel ay ugu aqoonsatay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale ay ka degayso waxa sidoo kale la soo bandhigay waxa laga yeelayo shakhsiyaadka sida weyn uga biididsan ee baraha bulshada iyo warbaahinta ka soo muuqanaya heshiiska Israel iyo Somaliland waxaana lagu ballamay in gacan biraha lagu qabto oo micnaheedu yahay in xabsiga loo taxaabo oo aan wax naxariis ah loo falin hadda waxa Hargeysa ku xiran culimaawoodiin dhalinyaro iyo odayaal dhaqan oo si adag ugu horeeyay heshiiskan oo ka digay qatarta amni ee ka dhalan karta waa tan keentay in xilligan Hargeysa ay wajahdo qatar amni oo waaweyn 34 sano kadib magaaladaasi waxay u muuqanaysaa mid martigelinaysa waxaysan bulshada halka ku dhaqan hore aysan u arag oo cabsi ah oo imikan ay dareemayaan ugu dambeyntii hadii aynu eegnana waxaa maanta ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo loogu talagalay in 3 gobol oo ka tirsan dalka ay howlgal ka sameeyaan tababar loogu soo xiray gobolka Hiiraan ciidankan oo qayb ka ah qeybaha 22aad iyo 27aad ee ciidanka militariga ah Soomaaliya waxa la qorsheeyay inay toos uga qayb qaataan
howlgal lagu xureynayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe. Ciidankan waxaa tababarka u soo xiray taliyaha ciidanka lugta General Khalid isagoo si adag ula dardaarmay ciidankan oo uu sheegay in mas'uuliyadda ay iska saaraan xaqiijinta amniga guud ee dalka iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sheegay in ciidankan looga fadhiyo inay soo hooyaan guulo wax ku ool ah oo muhiim ah, shacabkana ay ka dulqaadaan dhibaatada adag ay kooxda ku hayso sida uu hadalka u dhigay. Taliye Khalid waxa uu hoosta ka xariiqay in dhowaan ciidankan ay toos u fulin doonaan howlgalladan qorsheysan ee uu qorshuhu yahay in gebi ahaanba looga takhaluso kooxda Al-Shabaab deegaano iyo degmooyin kol hore looga saaray iminkanse dib ay ugu soo laabteen oo ay kooxda maamulayso. Wuxuu kaloo uu sheegay in saddexdan gobol oo toos howlgallada looga fuliyay ay kooxda ay dhabarjab weyn ku keeni karto oo aysan jirin meelo kala duwan oo isaga soo gurman karaan, isaga oona si rasmi ah u caddeeyay in diyaargarowgii ugu dambeeyay ay sameeyaan. Dhammaan talisyada qeybahan oo goobjoog ka ah halkaasi ayaana la faray inay ciidankan heegan buuxda ay geliyaan. Wararka iyo warbixinada aan halkan idinku soo baahinayno saaxiibayaal wixii ku soo kordho xogaheena iyo macluumaadkeena xiga kuwan ayaan sidoo kale idinkula wadaagi doonaa oo nala sii jooga barteena YouTube channel-keena Warsan News. Nabadgelyo.